بسم الله الرحمن الرحيم waxaan casharkan kaga hadlaynaa sida computerka fayraska looga nadiifiyo haddii aad ka dareemisid computerka culays fara badan ama jam marmarka qaar oo waa astaan lagu garto virus saas daraadeed computerka sidaad uga nadiifin lahayd ayaan casharkan uga hadlaynaa la soco talaabada ugu horeysa ee qaadano waxaan isla taabanaynaa Windows +R kadibna waxaa la ku qorayaa calaamadan %10 kadibna %, kadibna waxaa leeyahay okay. waxaan halkan ku aragnaa ku dhawaad 57 item in ay ku jiraan halkan dhammaantood waan ka saarayaa waa virus kadibna waxaa leeyahay delete kadibna waxaa leeyahay okay continue try again mar labaad kadibna okay kadibna sidoo kale control A kadibna waxaan leeyahay edit kadibna waxaan leeyahay Windows +R mar labaad waxaan qorayaa privilege kadibna waxaan leeyahay continue waxaan ku dhawaad 221 item ayaa hal ku jira oo runtii virus ah waan highlight gareynaa dhammaantood control A right click delete cancel mar labaad ku celi okay kadibna waxaan tagayaa start menu-ga waxaana ku qorayaa disk waxaana ku qornaa disk cleanup waa ku dhufanayaa kadibna okay wax yar baynu sugaynaa waxaa inoo soo baxday sidaynu arkayno warqadan waxaan tigta saarayaa download program files ku qoran tahay waxaan kaloo tigta saarayaa recycle bin temporary files iyo thumbnail kadibna waxaan dooranayaa okay kadibna waxaan delete files hadda waa u dhamaaday haylaawin in aad computerka restart ku sameyso waxaan rajeynayaa in computerkaagu uu culays fara badan ku jiray uu iska saaro oo aad u nadiif ku noqdo